السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كسو دوادا channel كان عبدي كاهي عبدي على بلاتين مادوينك ساينسك خاصة مادوينك حساباتك iyo فيزيكسك iyo casharo ku saabsan kombiyuutarada. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno muuqaalkan waxaan ka hadli doonaa double angle identities. Double angle identities waxaan qaadanaynaa tusaalooyin la xiriira double angle identities. si lamid ah waxaan kaloo qaadanaynaa proof haddaynayo qaacidooyinkan double angle identities ama qaabkay ku imaadeen qaacidooyinkan double angle identities. waxaan ka bilaabaynaa inaan caddaynaan ka bilaabaynaa cos oo double angle ah. cos oo double angle ah waxaa leeyahay saddex qaacida lagu furfuri karaa ama saddex qaabooda loo furfuri karaa. cos square a minus sin square a waa qaacidada koowaad aan cos oo double aan ku furfuri karno. si lamid ah cos oo double angle ah waxaan kaloo ku furfuri karnaa laba lagu dhuftay cos laba jibaaran a laga jaray hal waa qaacidada labaad aan ku furfuri karno. qaacidada saddexaad aan ku furfuri karno cos waxay tahay cos oo double angle ah waxaa lagu furfuri karaa 1 minus laba lagu dhuftay sin koo laba jibaaran angalkiisana ee uu yahay. saddexdan qaacida ayaan isticmaalaynaa cos double angle inaan ku xalino. therefore waxaan rabnaa intaanan gudagelin qaabka loo xalinayo waxaan rabnaa qaacidooyinkan sifaadkay ay ku imaadaan. markaan ogaano sifaadka ay ku imaadaan ayaa waxaan ku dabaqi doonaa tusaalooyinka la xiriira double angle identities. ila socodsteed. okay, waxaan caddaynaynaa cos double angle qaacidada koowaad say ku imaataa. qaacidadan koowaad say ku imaataa proof waan caddaynaynaa. okay, qaacidada koowaad waxaan isticmaalaynaa cos summation aan isticmaalaynaa. cos oo wadar ah qaacidadan isticmaalayni ayaan ku dabaqaynaa. cos a plus b waxaan dhahnay waxaan kusoo tilmaannay in lagu furfuro cos sin angoladana la kala siinayo ab gudaha plus markay tahay halkaas minus ay noqonay. formulahaan rabnaa inaan kusoo saarno formulaha koowaad ee double angle identities uu leeyahay. okay, markaan isticmaalayno waxaan leenahay b-da qaacidadan ku jirta waxaan u qaadanaynaa a ayaan u qaadanaynaa. waxaan leenahay let b is equal to a. qiimaha b ha ay la ekaato a, yani micnaheedu waxay tahay b waa inay la ekaataa a. si aan qaacidadan usoo saarno positionka b aan waxaan ku bedelaynaa meel waliba ay ku jirto. okay, midda koowaad waxaan leeyahay cos a plus b waxay la ekaan kartaa cos a plus a. micnaheedu ay tahay barti b ayaan waxaan ku bedeshay a oo aan dhahay bal ha ila ekaato b ha la ekaato. therefore meeshaan b waxaan la ekaysiinayaa a waa kan waan ku bedelay. halkan waxay la ekaanaysaa cos laba e isku dar waa laba e. halkan waxaan helnay coski inuu double yahay ama coski waxaan ka dhignay double angle aan ka dhignay. coski waxaan ka dhignay oo ahaa cos a plus b waxaan ka dhignay cos double angle aan ka dhignay. okay, aan soo qaado marka qaybta hartay aan soo qaado oo ah cos a cos b minus sin a sin b. okay, si lamid ah hore waxaan usoo tilmaannay let b is equal to a bal b ha ila ekaato a. marka meel waliba b ku jirto oo equationka kalena waxaan ku bedelayaa a ayaan ku bedelayaa oo micnaheedu ay tahay cos a oo ku dhacsan cos b meeshay ahayd a ha la ekaato b a aan ku bedelayaa minus dheh sin a oo ku dhacsan sin b b-da waxaa ku bedeshaa a sin a dheh. okay, si fiican u fiiri ustaad meeshaan cos a sumada u dhaxaysa ah
multiple waa ku dhufasho sin a iyo sin a na ku dhufasha u dhaxayso marka cos lagu dhuftay cos dabcan waxay noqonaysaa cos laba jibaaran a minus sin lagu dhuftay sin waxay noqonaysaa ayadana sin square a halkan waxaan xaqiijinay cos double angle identity koowaad oo ahaa cos oo double ah waxay leegtahay cos square a minus sin square a halkaas waxaan u gudbinaa qaacidada koowaad qaacidada labaad aan u gudbinaa okay ustaad qaacidada labaad ama midda saddexaad midda koowaad midda labaad iyo midda saddexaad waxaan isticmaalaynaa trifunction single trifunction identity aan isticmaalaynaa oo ahayd waxaa jirto single trifunction identity waxaa jirto oo tilmaamayo cos koo laba jibaaran cos square theta plus sin square theta inay la eg tahay kow 1 equationkan wuxuu tilmaamayaa oo single trigonometric functionka wuxuu leeyahay haddii cos koo laba jibaaran lagu daro sin koo laba jibaaran waxay ku siinaysaa natiijo hal ah bay ku siinaysaa therefore waxaan ku dabaqaynaa single trigonometric equationka koowaad oo kaas ah ayaan waxaan ku dabaqaynaa qaacidadan aan helnay oo double angle-ka ah oo ahayd waxaan dhahnay cos double angle a inuu leeyahay cos square a minus sin square a labadan qaacidood aan isku dabaqaynaa labadan qaacidood ayaan isku bedelaynaa okay midda aan soo qaato marka tan sideeda ay u qornaato middan waa midii koowaad aan soo helnay waay midaan aan soo qaadanayo okay waxaan leeyahay cos square a plus sin square a waxay leegtahay 1 wax kale ma sameyn ustaad kelito waxaan sameeyay meesha tiitada waxaan u qaatay a maadaama angle-ka hadda aan isticmaalayn uu a yahay kii aan soo qaatay positionka tiita waxaan ku bedelay a okay mar allaala markaan rabo qiimaha sin inaan helo anoo isticmaalayo equationkan waxaa ii fudud sinkana qiimihiisa qaacida aan ku raadinaya inaan meeshan ka drive gareeyo islamida sinkana qiimo aan ku helayo qaacidihiisa inaan meeshan ka drive gareeyo to begin with cos aan ka bilaawno sinkan halkaas soo marinayo therefore cos markaan helayo cos square a waxay la ekaanaysaa 1 minus sin square a kan waa equation koowaad oo meeshan ka heli karno okay equationka labaad aan meeshan ka heli karno ama qaacidada labaad aan meeshan ka heli karno waxay tahay markaan rabo sinka qiimihiisa inaan raadiyo coskan wareejinaya dhankaas aan marnaa therefore cos haddaan dhankaas mar labaad aan u raro halkaan sin aan kusoo harayo sin square a waxay la ekaanaysaa 1 minus cos square a waa equationka labaad ustaad meeshan waxaan kasoo saarnay laba qaacido oo midna ah haddii cos laba jibaar haddii la ii diro aan qaacida aan ku heli karo islamida sin square haddii la ii diro inaan raadiyo qaacida aan ku heli karo marka meeshan markaan joogno waxaan sameynaynaa labadan qaacidooyin oo cusub aan helay waxaan ku dabaqayaa qaybta sare oo midii oo ahayd double angle identity koowaad aan soo helno okay soo qaada marka cos oo double angle ah waxay la eg tahay cos square a minus sin square a marka hal aan u dul istaagaynaa hadda tilaabada ugu horeysa aan qaadan waxay tahay meeshaana waxaan bedelaynaa labadooda mid kamid aan soo qaadanaa ama coskan bedelaya ama sinkan bedelaya sababtoo ah waxaan ogahay coska laba jibaaran wixii lagu helaa sinka laba jibaaran si lamid ah qaacidada lagu helaa waan aqaanaa okay meesha marka labadooda mid kamid ah hadda aan bedelo waxaan ka bilaabaynaa coskan ka bilaabaynaa okay cos maxaa lagu helaa oo square markuu yahay cos oo square waxaa lagu helaa waa kana qaacidadan soo hagaajinay ama soo drive gareynay halkaan noo yaal marka meeshan waxaan ku dabaqaynaa aan ku bedelaynaa 1 minus sin square a minus sin square a oo hore ay noo taallay qaybtan ustaad aad ila fahan qaybtan 1 minus sin square a waxaan ku bedelay cos square a bartay ahayd oo ah cos square a waxaa lagu helaa 1 minus sin square a waan ku bedelay halkan waxaa ii yaalay minus sin square sideeda usoo qaado okay 1
minus sin square minus sin square laba qiimo isku darajo ah haddana sumada negative u dhaxaysa meeshan taal marka laba negative haday israacaan obviously oo isku darayna tirooyinka horgalahoodan isku darayna waxay noqonaysaa 2 sin square a halkan waxaan xaqiijinay cos double angle identity-ga labaad inuu la eg yahay 1 minus 2 sin square a haddaan fiirin halkan waxaan haysanaa 1 minus 2 sin square a waa midii labaad waa okay midka saddexaadan haddana aan xaqiijinaynaa asigana aan cadaynaynaa okay wax kale ma samaynayno ustaad waxaan kelid samaynaynaa qaacidada cusub ama midii cusbeed oo sinkoo laba jibaaran ahaa ayaan qaacidadiis waxaan ku dabaqaynaa coska oo double-ka ah midkii hore aan soo helnay oo ah cos 2 theta wuxuu leeyahay cos square a minus sin square a okay hadda waxaan bedelnay cos soomaan hadda sinkan bedelaynaa okay sinka meequu leeyahay sinka wuxuu leeyahay cos square a minus sinka meequu leeyahay sinka wuxuu leeyahay 1 minus cos square a buu leeyahay okay from here halkan markaan joogo collect lag terms kuwa isku laaga isku dhinaca marinina okay waxaa lag terms isla ah cos iyo cos let us put bracket and delete okay waxaan sameynaynaa marka meeqa cos haystaa laba cos haystaa calaamadan coska uu wato in badan coska sumadiisu wuu qarsadaa ama calaamadan waxaan ku dhufanaynaa coska gudaha ku jiro therefore negative ay noqonayaan halkan waxaa iisoo bixayso 2 cos square a minus 1 2 cos square a minus 1 inta badan waxaa la coska sumada wuu qarsadaa ama coska sumadiisa hadaa halkan ku dhufto negative cos ayuu noqonayaa negative cos 2 cos therefore maadaama coska negative okay waxaan kaloo qaadanaynaa sin oo double angle ah iyo tan oo double angle ayadan labadoodan qaadanayna ayagana qaabkeen u proof gareynaynaa u xaqiijinaynaa sin 2a inay leegtahay laba lagu dhuftay sin a cos a isla tan 2a inay leegtahay laba lagu dhuftay tan a loo qaybiyay hal laga jaray tan square a qaabkeen u xaqiijinaynaa ustaad wax weyn ma ahan kelid waxaan ku dabaqaynaa ayagana waxaan ku dabaqaynaa qaacidooyinkii saamka ahaa aan hore usoo qaadanay aan ku dabaqaynaa okay waxaan ka bilaabaynaa marka inaan proof gareyno waxaan proof gareynaynaa sin oo double ah sin oo sum ah waxaan soo sheegnay sin a plus b in lagu helayo sin cos sin ab okay gudahaas balas u qaad okay waxaan leenahay let b is equal to a bal barta b aan u qaadano a aan u qaadano positionka b aan u qaadano a aan u qaadano okay see ugu qaadanaynaa ustaad kuwa hore waxaan kusoo sameynaya tanna aan ku sameynayna waxaan leeyahay sin a plus b waxay leegtahay sin a plus a sababtoo ah waxaan dhahay qiimaha b wuxuu la ekaan karaa qiimaha a buu la ekaan karaa marka waan isku dabaqayaa waxaan leeyahay meesha b waxaan ku bedelayaa a ayaan ku bedelayaa therefore halkan waxaa iisoo bixayso sin a plus a 2a halkan waxaan ka dhigay sinka double ayaan ka dhigay sinkii oo sum ahaa waxaan ka dhigay double okay waxaan kaloo soo qaadanayaa formula ayaan soo qaadanaya waxaan leeyahay
sin 2a waxay la eg tahay sin a cos b plus cos a sin b saanu leeg. Okay, barta b ay ku jirto a aan ku bedelaa sin a lagu dhuftay cos a, meesha b waxaan ku bedelay a plus cos a lagu dhuftay sin a, b waxaan ku bedelay a ayaan ku bedelay. Okay, labadan waxaa u dhaxaysa ku dhufasho. Waxaan rabaa sin a oo ku dhacsan cos a plus cos a oo ku dhacsan sin a. Haddaad fiirisid labada function waa isku mid, yacni sin iyo cos iyo sin waa dhib ma laha kala duwanaanshahooda, yacni baraha u kala bedelan dhib ma laha, laakiin identity ahaan isku qiimo yihiin. Yes, waa isku qiimo. Halkan waa hal cos iyo hal sin, hal cos iyo hal sin. Therefore isku dar waxay noqonayaan 2 sin a iyo 2 cos. Halkan waxaan xaqiijinay sin oo double ah inuu la eg yahay 2 sin a lagu dhuftay cos a. Ayaan halkaas waxaan proof gareynay sin oo double angle ah inuu isiinayo 2 sin iyo 2 cos inuu isiinayo. Therefore waa kuwan labadii sinkaas iyo labadii cos markii la wadareeyay waxay ku siinayaan 2 sin a cos a ay ku siinayaan. Waxaan haddana proof gareynaynaa tan double angle ayaan proof gareynaynaa oo ah tan 2a waxay la eg tahay 2 tan a loo qaybiyey 1 minus tan square a. Ma xaqiiqa? Let us see. Hadday sax tahay waan proof gareynaynaa. Okay, waxaan soo qaadanayaa tan oo sum ah ayaan soo qaadanayaa. Tan a plus b ayaan soo qaadanaynaa. Waxay la ekeed tan a plus tan b all over 1 minus tan a tan b. Saanay la ekeed tan oo sum ah intaasay la ekeed. Okay, from here waxaan leenahay let b equal to a. barta b ay ku jirto aan u qaadano a aan u qaadano. Okay, aan ka bilaabno qaybta ugu horeysa oo tanka ah. Tan a plus b wuxuu la eg yahay tan a plus a. tan a plus a wuu leeyahay. Okay, halkan waxaa ii soo bixayso tan a plus a 2a oo la eg tan 2a. tanka double ayaan ka dhigay oo sumka ahaa waxaan ka dhigay double ayaan ka dhigay. Okay, waxaan leeyahay marka qaybta kale oo ii soo hartay waxaan leeyahay tan oo double angle ah wuxuu la eg yahay tan a plus tan b. tanka oo double angle ah wuxuu la eg yahay tan a plus tan b loo qaybiyey 1 minus tan a tan b. saanu leeyahay. Okay, waxaan dhahnay qiimaha b waxaan mar waliba ku bedelaynaa a ayaan ku bedelaynaa. Okay, aan ku bedelo meeshaan waxaan leeyahay tan oo double angle ah wuxuu la eg yahay meesha a tan a sideeda u dhaaf plus meesha b waxaa ku bedeshaa tan a oo laba dheh 1 minus tan a meesha b waxaan ku bedelay a. Okay, maxaa inoo soo baxay marka? 2 tan a laisku daray waa 2 tan a haddii lagu daro waa 2 tan a. Okay, 1 minus tan a lagu dhuftay tan a tan square a. Okay, halkaas waxaan proof gareynay
tanka oo double ah asigana waxaan rabaa tan summationkiisa in uuna siinayo tan oo double angle ah. Halkaas waxaan kaga gudbaynaa proofingka ama derivationkii sin, tan iyo cosine oo double angles ah ayaan halkaas kaga gudbaynaa. Waxaan fiirinaynaa insha Allah example la xiriira ayaan qaadanaynaa double angles